bismillaahir rahmaanir rahiim kulantu waxaan wanaagsan daawadayaal halkan warbaahiye media qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dabley hubaysan oo masjid muqdisho ku yaala ku dishay nabadoon quraan akhrinayay biyaha gobolka banaadir oo shaqo joojin ku sameeyay mid kamid ah ku xigeenadiisa israsaaseen ay dad ku dhinteen oo ka dhacday magaalada Baydhabo ee gobolka Baay maamulada diidan habraaca doorashooyinka ee xukuumadda oo kordhay wasiirka arrimaha gudaha oo ka hadlay Somaliland oo soo saartay awaamiir si gaar ah u saameynaysa masaajidda lagu tukado taajudka dibadbax looga soo horjeedo Somaliland oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag madaxweynaha maamulka Puntland oo ka warbixiyay safar uu ku tagay wadanka Shiinaha ramo soo dhaweeyay hub hor leh oo uu Mareykanku ka iibinayo Saudi Arabia bismillaahir rahmaanir rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan dabley hubaysan ayaa masaajid ku yaala muqdisho ku dishay nabadoon quraan akhrisanay hubaysan ayaa gelinkii dambe maanta waxa ay xaafadda jungal oo ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ku dileen nin la sheegay inuu ahaa nabadoon laga garan ogaa xaafadaasi nabadoonka la dilay ayaa waxa lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay nabadoon Ibraahim Cariif oo isaga ku dhex jira masjid la yiraahdo Sheekh Xasan Cadde ee xaafadda jungal dabley hubaysan ay ku dhex dileen sida goob joogayaal ay u sheegeen xafiiska wararka KNN dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen xilliga nabadoonka la dilay inuu ahaa mid akhrinaya kalaamka Allah ama Quraanka Kariimka qolkeebe waxaana la tilmaamay in ragga falkaasi geystay ay ahaayeen dhalinyaro gaaraysa tiradooda labo waxa ayna ugu dambeyn markii ay dilka geysteen kadib ay isaga baxsadeen goobta ay dilka ka geysteen lama oga sababta loo dilay nabadoonka magaciisa lagu sheegay nabadoon Ibraahim Cariif waxaana marka falka dilku dhacay kadib goobta gaaray ciidamo ka tirsan booliiska waxaana la tilmaamay in halkaas lagu soo xiray dad la tuhunsan yahay in ay ku lug lahaayeen dilka nabadoonka la dilay isaga oo quraanka akhrisanay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa shaqo joojin ku sameeyay gudoomiyaha xogaanka hawlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha Yariiso ayaa shaqada lagu joojiyay aadan Sheekh Cali Fiida oo ah gudoomiyaha xogaanka hawlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir sida ku cad warqada ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha waxa shaqo joojinta lagu sameeyay maamulkaas mas'uulkaasi ay salka ku haysaa inuu sameeyo mardido iyo talaabooyin dhowr ah oo ku sameeyay la tashi la'aan kuwaas oo qaarkood la tilmaamay inuusan awood u lahayn qoraalka ayaa lagu sheegay in aadan Fiida uu curyaamin ku hayay shaqada gobolka Banaadir isagoo shaqo joojinta uusan awood u lahayn ku sameeyay agaasimaha waaxda qorsheynta iyo injineeriyadda isagoona la tashi kala sameyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho israsaaseen ay dad ku dhinteen ayaa ka dhacday magaalada Baydhabo ee gobolka Baay inta la xaqiijiyay 5 qof ayaa ku geeriyootay mid kamid ah oo ahaa shacab halka 4 kalena ay ahaayeen ciidamadii israsaaseeyay 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaaseyntan ayaa waxa ay dhaxmartay ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxayna ka dambeysay kadib markii ciidamadan israsaaseeyay ee iska dilay 4 qof mid kamid ahna uu ahaa shacab ay ku murmeen dhul lahaanshihiisa waxaana inta kadib goobta israsaaseynta ay ka dhacday gaaray ciidamada daraawiishta waliba taliye ku xigeenka ciidamada daraawiishta Cabdilaahi Isxaaq isagoona goobtaasi kala qaaday ciidamadii ku isku rasaaseeyay waxa ilaa hadda socda waan ku aadan sidii loo xalin lahaa ciidamadaasi isku rasaaseeyay gudaha magaalada Baydhabo wali waxa la dareemayaa dhiila ku aadan israsaaseyntaasi ciidamadan isku haysta dhulka ayaa iyagu wali isu marinaya hanjabaad dhanka taleefanada ah sida ay ii sheegeen qaar kamid ah ciidamada israsaasiyay qaarkood oo aan la hadlay haddaba magaalada Baydhabo waxa bariyihii ugu dambeeyay ku soo badanayay muranka lahaanshaha dhanka dhulka ah waxaana maamulka ay ka soo saareen horay amaro ku aadan qofkii qof dila in isaguna la dili doono haba ku murmaane dhul ama sikama ama sikadiisa uu u dilo intuba walise waxa soconaya gacan ka hadalka sababaya dhimashada iyo dhaawaca ee ku aadan murunada la xiriira dhinaca dhulka yaana qabiil maamulada diidan habraaca doorashooyinka ee xukuumadda ayaa kordhay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawlad goboleedka Jubbaland ayaa si kula looga hadashay warqad maalinimadii shalay ahayd ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya
taasi oo ku aadanayd ama looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Warsame Faarax Darwiish ayaa sheegay in dowlad goboleedka Jubbaland ay mowqif adag ka qaadatay warqadaasi isla markaasina ay ka soo horjeesatay guud ahaanba waxyaabaha ku qoran, taas oo ku tilmaamay in arrimaha doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland ay u taalo Jubbaland oo kaliya, taas oo ku tilmaamay inuu u ogol yahay dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kan Jubbaland. waxaan rabaa inaan halkan ka sii daayo war-saxaafadeed aan daba joogo war-saxaafadeed habraaca oo xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka kaas oo la xiriiray habka habraaca doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland ama dowlad goboleedyada. sidaa darteed dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ka go'an inay ilaaliso sharciga gaar ahaan sharciga khuseeya arrimaha doorashooyinka. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saartay war-saxaafadeed siyaasadeysan kaas oo tilmaamaya in ay doonayso inay farageliso doorashooyinka Jubbaland sidii horey uga dhacday dowlad goboleedyada qaar ayna ka dhalatay khasaarooyin naf iyo maalba leh. mana jiro qodob awood u siinaya inay farageliso doorashooyinka dowlad goboleedyada. dowladda federaalka war-saxaafadeedkeeda waxay ku sheegtay in qodobka 46 ee dastuurka qaranka uu tilmaamayo inay iyadu farageliso natiijada ayna si rasmi ah ugu dhawaaqdo. qodobkana sidaas ma qabo ee waxa uu sheegayaa in nidaamka matalaada uu ahaado mid furan, in nidaamka matalaada uu ahaado mid isku filan. arintaasna waxay ku caddahay dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland. diyaar ayayna u tahay in ay ilaaliso dastuurka. sidoo kale dowlad goboleedka Jubbaland waxay diyaar u tahay in ay helaan shacabka Jubbaland xaqa matalaada isku dheelitiran sida ku cad qodobka 22aad ee dastuurka Jubbaland. ugu dambeyntii dastuurka dowladda federaalka wuxuu si cad u sheegayaa qodobada kor ku xusan in dowlad goboleed kastana uu ku dhaqmo xuquuqda uu dastuurku siinayo. cawaaqib xumo ah oo ay keento faragelintaas sharciga balmarsan waxaa mas-uul ka noqon doona dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Qaasim Cali Waxar, idaacadda Kulmiye. dhegeystayaal sida hadda aad maqasheen maamulka Jubbaland ayaa ku soo biiray maamulada diidan habraaca doorashooyinka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya idan hore ay u diideen maamulada Galmudug iyo waliba Hirshabelle. arrintaas sidoo jirta ayaa Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya oo la hadlay VOA ayaa sheegay in ku qancin doonaan maamulada tabashooyinka ka qaba habraaca ay soo saareen isla markaana wax waliba ay ku dhameyn doonaan isfaham. aniga ma garan karo tabashadaas meesha ay ka imaanayso. annagu hadda uma soconno inaan inta maamulka dowlad goboleedka maxaa la yiraahdaa Jubbaland meel fariistan la yiraahdo aan annagu shaqadooda qabsano mana noo shaqayn karto. wax Jubbaland ku jeeda oo aan annagu qornayna ma jiraan, wax dowlad goboleed kale ku jeedo annagu aan qornayna ma jiraan. waxaan jeclaan lahaa waxa annagu aan qornay wixii ku jira oo ay ka biyadiidsan yihiin ama Jubbaland ama maamul goboleedka dowlad goboleed kale inay yiraahdaan kana nagu qaldan. uma malaynayo qof inuu ka soo saari karo wax cusub oo la yiraahdo waxaanu kuma jirin nidaamkii aan ku wada shaqeynayna. tan kale wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal guud ahaan dalkuba hadduu dal yahay mas-uuliyadda guud oo ah dalkan dimuqraadiyeyntiisa iyo federaaleyntiisa mas-uuliyadda guud wasaaradda arrimaha gudaha iskale. doorashooyinkan waa howl qaranku wada leeyahay. wasaaradda arrimaha gudaha federaalkana kaalin ay leedahay, dowlad goboleedkuna kaalin uu leeyahay. kaalin ay leeyihiinna qof taabanaysa iyo qof u socota midna lama arko. waxaan rabaa inaan fursadda uga faa'iidaysto inaan iraahdo dowlad goboleed kasta oo inta arkay qoraalka aan shalay soo saarna xasaasiyad ka qaba waxaan diyaar u nahay inaan ka qancino wixii culaysahoo ay ka arkaan. mana qiyaasayo
wax la diido iyo wax laga dido midna meeshaas inay ku jiraan. somalilan ayaa soo saartay awaamiir si gaar ah u saameynaysa masaajida lagu tukado salaada taajudka. wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan oo maanta go-aan soo saartay ama amar ku farayso nidaamyada masaajidada dhammaan deegaanada somalilan waxaa ku amartay in salaada taajudka ee xilliga dambe tobanka rabadaan la tukanayo aan la isticmaalin makarafoonada ka baxaya ama codbaahiyaasha ka baxaya masaajidada. wasaaradda agaasimaha guud oo u hadlay aadan oo u hadlay waxa uu sheegay in habasho badan ay kasoo gaadhay dadka masaajidada goobahaasi ku nool islamarkaana aan loo ogolayn in hadda laga bilaabo ay isticmaalaan imaamiyadu. waxa uu sheegay in salaadaasi sunno ay tahay oo loo baahan yahay oo ay tahay in gudaha masaajidkuna ku koobnaato qur-aanka iyo nidaamka la akhriyo islamarkaana dadka sidaasi loogu tixgeliyo maadaama dad carabta intooda badan hurdo dad xanuunsanayana qaarkood ay masaajidada qaarkood ku nool yihiin. marka amarkaasi ay soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan waxay ku soo hogaysay arrintaasi ku saabsan in dadku ay ka soo cawdeen qodobkaasi habeenkii xilliyada ilyas ma si guud marka amarka deegaanada somalilan miyuu quseeyaa mise deegaan gaar ah? su-aasha kale aan rabo inaan ku weydiiyo weli ma ka hadleen culimada masaajida? cabdiqano go-aan kan kasoo baxay wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan waxa uu khuseeyaa dhammaan masaajida ku yaala xuduudaha somalilan min saylac ilaa iyo taleex. marka go-aanku waxa uu ka dhaqan geli doonaa deegaanada somalilan ilaa iyo hadda ma jirto cabdiqano culimada waaweyn ee somalilan ama guddiga wanaag fariistii xumaan reebista somalilan oo ka hadashay go-aankaasi kasoo baxay wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan. balse waxaa xusid mudan in masaajida waaweyn ee culimada qaarkood ka galaan aan makarafoonadu waqtiyada lagu jiro xadiista iyo sidoo kale dacwadaha laga baranaya aanay dibadda u bixin oo gudaha uu ku kooban yahay dacwadahaasi iyo qur-aan akhrintu. doodbax lagu soo horjeedo somalilan ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka sanaag iyadoona dhanka kale madaxweynaha maamulka puntland uu ka warbixiyey safar uu ku tegayo dalka shiinaha. shacabka ku dhaqan degmada ceelbuh ee gobolka sanaag ayaa maanta halkaasi ka dhigay mudaharaad ay ku sheegeen in ay kaga soo horjeedaan joogitaanka ciidamada somalilan ee gobolkaasi. qaybaha bulshada ku dhaqan degmada ceelbuh oo sitay calanka maamulka puntland islamarkaana ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah somalilan ayaa socod ku maray degmadaasi. degmada yuba ayaa iyana la sheegayaa in ciidamada somalilan ay dhaawac culus ugu geysteen qof dumara kadib markii rasaas ay ku fureen shacab halkaasi ku mudaharaadayay. inkastoo degmada yube ay weli ku sugan yihiin ciidamada militariga somalilan. sidoo kale ciidamo somalilan ah oo xalay ka soo baxay degmada ceel afweyne iyo deegaanka lagu magacaabo afgaab oo gobolka sanaag ka mid ah ayaa saaka ku biiray ciidamadii horey somalilan uga joogay degmada yube ee gobolkaasi. dhanka kale puntland ayaa xoojisay ciidamada ka jooga duleedka bari ee degmada yube iyadoo wakhtigan meelo isu muuqda ay joogaan ciidamada puntland iyo somalilan. xiisada colaadeed ee hor leh ayaa iminka laga dareemayo gobolka waxaana laga cabsi qabaa in dagaal uu ka qarxo deegaanada ay isku hor fadhiyaan ciidamada puntland iyo somalilan. dhanka kale wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Generaal Maxamed Abshir Muuse ee magaalada Garowe. safarka madaxweyne Dani ayaa waxa uu ku wajahan yahay dalka Shiinaha isagoo la sheegay inuu ku saabsan yahay mashaariic dhanka kaabayaasha dhaqaalaha iyo maalgashiga ah. waana safarkii labaad ee dalka dibadiisa uga baxo madaxweyne Dani tan iyo markii la doortay 8 bishii January ee sanadkan. socdaalkankii ka horeeyay ayaa madaxweyne Dani waxa uu ku tagay dalalka Imaaraadka Carabta iyo Kenya isagoo xilligaasi ka baaqday safar uu ku tagi lahaa wadanka Shiinaha. Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu fasaxay in hub qiimihiisu yahay bilyan dollar ah laga iibiyo dalka Sacuudiga. wuxuu ku sheegay sababta khatarta kaga imaan karta dalka Iran oo maalmihii ugu dambeeyay waday dowlatus balaaran. Trump wuxuu adeegsaday sharci si dhif ah loo adeegsado oo heer federaal ah si uu meel mariyo heshiiska hubka looga iibinayo dalka Sacuudiga kaasoo qiimihiisu yahay 8 bilyan oo dollarka Mareykanka. si cadiga sharcigan waxaa iska leh awood u leh inuu ansixiyo Koongareeska dalka Mareykanka. wuxuu talaabadan u qaaday inuu cadeeyo in xiisada Iran iyo Sacuudiga dhex taalo ay noqotay arrin degdeg ah oo qarankiisa la soo gudboonaatay. go'aankan ayaa ka cariisay dadka ka cabsi qabay in hubka loo adeegsado dadka rayidka ah. Deysal warkaafinimo waa nagantaa. deysal warkaafinimo waa nagantaa.
donald trump madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay inuu fasaxay in hub qiimihiisu yahay balaayiin dollar ah laga iibiyo dalka sacuudiga wuxuu ku sheegay sababta khatarta kaga imaan karta dalka iiraan oo maalmihii ugu dambeeyey waday dhowlatus ballaaran trump wuxuu adeegsaday sharci si dhif ah loo adeegsado oo heer federaal ah si uu u meelmariyo heshiiska hubka looga iibinayo dalka sacuudiga kaasoo qiimihiisu yahay 8 bilyan oo dollarka maraykanka si cadiga sharcigan waxaa iska leh awood u leh inuu ansixiyo kongareeska dalka maraykanka wuxuu talaabadan u qaaday inuu cadeeyo in xiisada Iiraan iyo Sacuudiga dhex taalo ay noqotay arrin degdeg ah oo qarankiisa la soo gudboonaatay go'aankan ayaa ka cariisay dadka ka cabsi qabay in hubka loo adeegsado dadka rayidka ah. Deysel warka habeenimo waa naginta